wanaagsan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan sida aan la wada socono 23 maalin ee u dambeysay magaalada Muqdisho waxaa ka socday shirar gooni ah shirar gaar ah shirarkaas oo looga hadlayay xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee cakiran waxaa magaalada Muqdisho jooga magaalo madaxda ama caasimadda dalka jooga madax ka timid dowlad goboleedyada dalka waxay yimaadeen iyada oo colaadi ka jirto deegaanka ay degan yihiin abaari ka jirto deegaanka ay degan yihiin haddana waxay u dhabar adeegeen isku dayeen inay joogaan magaalada Muqdisho si xal looga gaaro xaqiiqda aad bay ugu mahadsan yihiin waxa kale oo iyadana mahad balaaran mudan dadka ama gaar ahaan mas'uuliyiinta qaranka ayaguna doorka ay ku lahaayeen in shirkan socdo waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa bulshada caalamka oo iyadoo qaaday mas'uuliyadda ah in ay barnaamijkan amba xal u helaan arrimaha Soomaaliya ee cakiran doorashooyinka dalkan 4 sano waxaa ka dhacay doorashadaas oo ah doorasho la isla ogol yahay raali lagu wada yahay natiijada ka soo baxdana weligeed la aqbali jiray si aan u soconno ama dalkan uu gaaro horumar amba uu ka gudbo xaaladda hadda uu ku jiro waxaa lama huraan ah dhammaanteen noo ah anagoo dhan in heshiiskan uu noqdo mid miro dhala guul laga gaaro dhowrkii asbuuc ee u dambeysay waxaan shirar kala duwan la yeeshay dhammaan qaybaha kala duwan ee ka qayb galaya shirka qaybo ka mid ah ha noqdaan madaxda dowlad goboleedyada ha noqdaan xukuumadda kusimaha ah ee hadda jirta madaxdeeda sidoo kale waxaan la kulmay on shir dheer wada yeelanay dhowr cisho ka hor madaxdii ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed culamaa u diinka dhammaan waxaanu ka wada hadlaynay amba istusaynay walwalka dhammaanteen laga hayo in heshiis degdeg ah laga gaaro xaaladda cakiran ee aan ku jirno dalka uu ku jiro xaqiiqdii ummadda Soomaaliyeed muddo 30 sano ah waxa ay ku xalinayeen iyo ka badanba 100 sano baan iraahdo gaar ahaan 30 sano u dambeeyay markasta oo ay timaado arrimo la xiriira isqabqabsi siyaasadeed hanagu dheeraata hanagu yaraata xal baan heli jirna anaga xalka iska lahayn nasiib xumo may dhicin markaan kala daadshanaansho aan caadi ahayn ayaa muuqato kulamadaas sidaan soo sheegay markii aanu yeelanay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ku soo ogaado waxa ay tahay amba ay dareenkeeda ila muujiyeen dadkii iyo madaxdii aan la kulmo waxay tahay kalsooni darro aad iyo aad u xun baa taalo doorashada markii la qabanayo sideeda warqad kaliya ma aha warqaddu waxay faa'iido u leedahay amba wax looga qaban karaa markii la is aaminsan yahay laakiin markii ay jirto kalsooni darro raagtay kalsooni darro qofkii si xun u taabanaysa amba uu dareemayo ha noqoto mid noloshiisa taabanaysa ha noqoto mid dadkii wakiilka ah taabanaysa qofka isaga ah way ku adkaanaysaa inuu doorasho galo marka muhiimku ma aha warqad la seexa muhiimaddu waxay tahay in kalsooni la helo oo kalsoonida lagu shaqeeyo waxaan qabnaa dastuur amba qorshooyin aan ku heshiinay ama babaadii wax la yiraahdo heshiiskaas bulshadeed wax badan buu kala xeerinayaa laakiin nasiib xumo lama isticmaalin waxa kale oo jiro oo meesha ka maqan hay'adihii dastuuriga ah ee la kala celin lahaa taa marka waxay keentay isku dhaxyaac iyo kala fogaansho anagoo taa hadda arkayno ayaa haddana waxaa lama huraana shacabka Soomaaliyeed oo niyad xumo haysa fara badan adduunka meel kasta ay joogaan ayaa haddana waxaan rabnaa inaan u muujino in la kulmayo la shirayo la is arkayo la is jiijiidayo iyada laftigeeda guul ah waxaan aaminsanahay in dadka isugu yimid ama mas'uuliyiinta isugu timid magaalada Muqdisho inay xaqiiqda daacad ka tahay inay xal helaan laakiin mararka qaar waxa imaanayso dantii gaarka ah qofka lahaa ayaa waxay ka hor imaanaysaa amba ka soo horjeesanaysaa dantii qaranka u lahaa marka waa lama huraan waxaan gaar ahaan rabaa inaan mahad celin yar aan u jeediyo beesha caalamka oo xaqiiqda ku mahadsan doorkii anaga aan lahayn amba ummadda Soomaaliya ay lahayd ay galeen way ka fiicnaan lahayd xaqiiqdii in culamaa diinkeena madaxdeena siyaasiyiinteena inay iyagu noqdaan dadkii mas'uuliyadda la wareegi lahaa amba qayb ku lahaan lahaa sidaas daraadeed walwal baan nahayo dhammaanteen anagoo dhan oo arrinta la xiriiro sida aniga aan qiyaasayna waxa ay tahay haddii aan xal la helin oo aan arrintan xal laga gaarin arrinta doorashooyinka waxa keeni doontaa in awoodii aan heshiis ku gaari lahayn amba awoodii dalkeena anaga hoggaanka ugu noqon lahayn inay cid shay gacanta u gali doonto taasna waxay dhaawac ku tahay qarannimadeena
xaqiiqda hadda ayayna jirtaa ood arkaysaan dhaawac arrintan ugu leedahay anigu waxaan ahay qof la soo shaqeeyay beesha caalamka muddo sanado ah wax badan ka yaqaano cabsi badan baa hayso haddii shirkan asaga lagu kala tago oo heshiis lagu gaari waayo iyadoo qofba qof fiirsanayo iyadoo oo aan kalsooni darrada jirta awgeed qof kasta uu ku dhago meeshii uu haystay waxaan shaki iga jirin in awoodda gacanta noogala qaadayo waxaan shaki kale oo iga jirin inaan anaga Soomaali haddaan nahay meel xun ay bahashana la aadays ay tegi doontaan ilaahdo meel aanan anaga ka soo cesho karin sidaas daraadeed waxaan tala ahaan u soo jeedinayaa oo aan ku celcelinayaa in madaxda timid magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ee ku sugan magaaladan ee dhabar adeegay ee qarashka ku socdo oo ka soo tagay howlahoodii inay ku adkaystaan magaalada inay joogaan inay ku adkaystaan in heshiis laga gaaro xaaladda cakarin ee dalkeena uu ku jiro waa lama huraan in aan lagu kala tegin magaalada sidaas daraadeed waxaan ku celcelinayaa ugu baaqayaa madaxda saaxiibada ila ah oo aan la soo hadlaan soo aragnay iyo qaarka aanan wali is arkinba inaan magaaladan laga bixin iyadan heshiis la gaarin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay u baahan yihiin kalsooni bay raadinayaan shacabka Soomaaliyeed waxay doonayaan xaaladda aan laga gudbo laga baxo duruufooyin badan haysto oo ku soo socdo duruufooyinkaas hadaan xal loo helina qatar cadiim ah oo weyn ayaa dalkeena iyo dadkeena ku jira أنا أد وقتيرا ينسن أد ونحسن وعن ربا إن تعسي أدر شعب كسومالي جود أهانتيس جارهان إن تعسي أدر الله ونحرسته الذي كبحذي كلمتي حاسكي مدحوني هوري مدن علي مهدي محمد رحمه محمود قعل إلهي سبحانه وتعالى جنة كورابيو أنا قلنا الصبر إيمان الله نقصيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.